habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida inta badan warkeena caawa waxaan diiradda ku saari doonaa arinta dhuusa mareeb shirka ka socda oo gabi ahaanba istaagay Axmed Madoobe oo banaanka ka istaagay shirkaasi sheegayna in warbaahinta uu sheegi doono in shirkaas uusan qayb ka sii ahaan doonin degdegna uu ugu laaban doono magaalada Kismaayo beesha caalamka ayaa wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa Axmed Madoobe cadaadis xoogan oo ay ku hayaan Mareykanka digniin kale ayuu ka soo saaray shirkaas in uu fashilmo baarlamaanka waxay u diyaar garoobayaan in beri oo sabti ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya khudbad uu jeediyo taa oo xaaladda dalka uga warmayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaan warkeena ku jeexjeexi doonaa haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo like iyo share ha ilaawin qaybta commentigana fikirkaaga inoogu reeb warkii oo dhan waa habeenimo jimco ah oo sabti ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha Febraayo sanadka 2021 haddii aynu ka hormarno shirkii ka socday dhuusa mareeb ayaa gabi ahaanba lagu kala booday iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu shaaca ka qaaday inuusan doonin ka qaybgalka shirkaasi kadib markii Axmed Madoobe xalay dood culus uu ka keenay qodobo laga soo saaray in xal looga gaaro arinta gobolka Gado oo qayb ay ka ahayd ciidamo booliis Ugandesa in la geeyo Garbaharey iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ugu magacaaban Garbaharey gaar ahaan duqa magaalada in la geeyo laakiin Axmed Madoobe ayaa arintaas dib uga soo laba kacliyay xalay markii maanta shirka dib la isugu soo laabtay ayaa wararku waxay sheegayaan in Axmed Madoobe halkiisii uu taagnaa isla markaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo isaga meel xun xaaladda ay ka gaartay xogta aan shirka ka helnay ayaa sheegaysa in qodobka ugu weyn ee la isku mari waayay uu yahay arinta gobolka Gado kadib markii madaxweyne Farmaajo uu tanaasuli waayay in maamulka doorashada gobolkaas uu gacanta u galiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la filayaa in uu la hadlo warbaahinta laakiin waxa durbadiiba la saaray markii shirkaas uu isaga baxay Axmed Madoobe cadaadis caalami ah oo beesha caalamka ayaa Axmed Madoobe ku qasbaysa in shirka dib uu ugu laabto isla markaana uusan qaban wax shir jaraa'id ah oo uu ku qabanayo dhuusa mareeb isla markaana warbaahinta uu si toos ah uu kala hadlayo madaxtooyada Jubbaland ayaa daawadayaal qoraal kooban oo ay soo saartay waxa ay ku tiri madaxweynaha dawladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa goordhow warbaahinta uga warbixin doona marxaladda uu shirka marayo iyo sababta ilaa ay haatan xal looga gaari laayahay arinta gobolka Gado taasi oo sababtay in heshiis rasmi ah uu ka soo bixi waayo shirka wada tashiga ah ee arimaha doorashooyinka looga xaal waramayo ee dhuusa mareeb ka socday maalmihii ugu dambeeyay dhinaca kale madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in uu si degdeg ah uga soo tago dhuusa mareeb kuna soo laabto Muqdisho isagoo balansaday biri oo xildhibaanada golaha shacabka waxa marka la isweydiinayaa haddii shirka wax natiijo aysan keenin ma beesha caalamka ayaa lagu qancinayay in hogaanka Soomaalida ay isku imaan karaan iyagoo aan isku ra'yiheen mise howlo kale ayaa jira beesha caalamka dhinaca kale waxay isku dayaysaa inay badbaadiso shirkan oo uusan fashilmin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobena cadaadiskii ugu xooganaa ayay wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in uu la kulmayo wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray dhuusa mareeb ayaa sheegaya in beesha caalamka ay bilowday dadaal degdeg ah oo lagu baajinayo shir jaraa'id oo ilaa iyo gelinkii dambe ee maanta Axmed Madoobe uu ku hanjabayay in warbaahinta uu qaban doono isla markaana uu ku dhawaaqi doono in shirka lagu kala booday sidoo kale waxa jirta in Axmed Madoobe uu isugu yeeray warbaahinta ku sugan dhuusa mareeb isla markaana markii warbaahinta halkaasi ay ku soo wajahnaayeen beesha caalamka ay ku dhageen Axmed Madoobe ayna u sheegeen in xilligan laga haboon yahay in Axmed uu ku degdego in shirka uu fashilmayna uu ku dhawaaqo wax kastaana xalkooda la gaari doono laakiin madaxweyne Farmaajo dhinaciisa waa uu ku dhagan yahay xaaladda waxaa jira isfaham guud oo la gaaray marka loo eego arinta xaaladda kale ee doorashada iyo sida loo qabanayo kuwa oo aan si toos ah loo soo bandhigin laakiin Axmed Madoobe iyo waliba madaxweyne Farmaajo waxay isku fahmi laayihiin arinta gobolka Gado oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan inay tahay arinta ugu xasaasisan Axmed Madoobe wuxuu doonayaa in doorashada Garbaharey ka dhacaysa
asaga uu gacantiisa ku maamulo halka madaxweyne farmaajo oo reerkiisa halkaas ay degan yihiin uu ka soo horjeedo guud ahaan dhaqdhaqaaqyadaasi inkastoo aan ogaan karin xaaladda iyo halka ay ku biyo shuban doonto haddana hogaanka caalamka beesha caalamka matalaya hanjabaada u jeedinaya hogaanka Soomaalida aad bay u soo badanayaan marka loo eego shirka dhuusamareeb iyo natiijada la doonayo in ay ka soo baxdo beesha caalamku waa ay ku daaleen xaaladda Soomaaliya hogaanka Soomaalidana si dhab ah ma doonayaan inay u wada hadlaan oo saraaxad ay ku dheehan tahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horay ayuu digniin u siiyay beesha caalamka oo uu sheegay inaysan faragelin toos ah ku sameyn karin xaaladda gudaha Soomaaliya talooyin ay bixin karaan dhaqaale ay bixin karaan wax alaale iyo wixii talo iyo tusaale ahna uu soo dhaweynayo iyadoo taasi laga duulayo safiirka dawladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa digniin kulul isaguna soo saaray oo ku saabsan shirka dhuusamareeb safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa mar kale war xasaasi ah ka soo saartay shirka magaalada dhuusamareeb uga socda madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada oo uu qayb ka yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir safaaradda ayaa qoraal soo dhigtay barteeda Twitter-ka daawadayaal uga digtay in shirkaas uu ka soo baxo doorasho ka gidisan midii hore lagu heshiiyay isla markaana la qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda oo aan meel kale ama qaab kale loo marin doonin waxay ugu baaqday madaxda ku shirsan dhuusamareeb ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay xaliyaan dhammaan arrimaha la isku khilaafsan yahay oo doorashada 2021 ku gadaaman Donald Yamamoto ayaa qoraalkiisa waxa uu sidoo kale u dhigay in markaasi xilligan laga maarmaan ay tahay beesha caalamka in door ay ku yeeshaan nidaamka uu wax u wajahayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashada shir dhawaan ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ay beesha caalamka runta ugu sheegeen madaxweyne Farmaajo ay sheegeen in muddo kororsi aysan dooneen waxa jira mid ka mid ah salaadiinta ka soo jeeda magaalada Muqdisho oo Nairobi kula hadlay isaguna warbaahinta waa wabar socdaal wabar raage wabar cilaaf ayaa sheegay beesha caalamka haddii xaaladda qasan ee Soomaaliya wax ka qaban weyso ay la micno tahay inay ku taageersan tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qorshihiisa dib u soo laabashada ee ay diidan yihiin musharaxiinta madaxweynaha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo dad kale oo siyaasadda dawladda si weyn u dhaliilsan sidoo kale waxa soo baxaysa cabsida aadka u xoogan ku saabsan in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu si toos ah arintan uga soo hadlo isla markaana markii ugu horeysay uu kala hadlo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaaladda doorashada iyo sida loo wajahayo inkastoo Donald Yamamoto loo arko inuu garab u yahay talaabada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku doonayo in mar kale talada dib ugu soo laabto inkastoo baraha bulshada aad loogu hadalhayo isbedelka uu keeni karo shirkan hadii uu fashilmo haddana golaha shacabka ayuu balansaday madaxweynaha fariimo ayaa loo diray xildhibaanada golaha shacabka iyadoo markaasi loo sheegay in ay kulan degdeg ah isugu imaadaan golaha shacabka ayaa mar kale loo iclaamiyay kulan gaar ah oo uu soo codsaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo la sheegay in looga hadli doono xaaladda dalka iminka uu marayo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa loo diray qoraal ku saabsan in bari oo Sabti ah 6 bisha Febraayo sanadka 2021 kulan gaar ah oo uu soo codsaday madaxweynaha isla markaana looga hadlayo xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka qaranka baarlamaanka uu doonayo madaxweynaha in uu la yeesho qoraalka loo diray xildhibaanada golaha shacabka ayaa u qornaa mudane xildhibaan bari oo Sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 6 bisha Febraayo waxaa jira kulan gaar ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu soo codsaday ajandahana waa warbixin ku saabsan xaaladda guud ee dalka doorashooyinka qaranka saacaduna waa 9 subaxnimo ayaa la yiri xilliga geeska Afrika haddaba kulankan nafsad ahaantiisa markaynu sii eegno daawadayaal dad badan ayaa shaki ka muujinaya marka la eego dhuusamareeb 1 2 iyo 3 markii ay soo dhamaatay madaxweynaha waxa uu la kulmay golaha shacabka kadibna waa tii hawada laga saaray ra'iisul wasaarihi xilligaasi talada joogay Xasan Cali Khayre waxa ay burburisay natiijadii ka soo baxday shirarkii dhuusamareeb waa tii 17 September haddana go'aan laga soo saaray magaalada Muqdisho kulamo ay isugu yeesheen maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo waliba madaxda dawladda federaalka Soomaaliya kadibna waa tii la soo magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble
haddaba waxaa laga cabsi qabaa shirka beri madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka codsaday golaha shacabka in lagu kala dhantaalo natiijo kasta oo kasoo baxda dhuusamareeb oo iminka ay ku shirsan yihiin madaxda laakiin kulankii uu istaagay kadib markii axmed maxamed islaam axmed madoobe uu sheegay inuusan usii dulqaadan karin xaaladda halkaas ka socota islamarkaana uu gebi ahaanba doonayo in warbaahinta soomaaliyeed iyo kuwa caalamka uu xaqiijiyo in shirkaas uu fashilmay madaxweyne farmaajo uu ka dhaga adeegay reerkiisa in la xukumo sida ay aaminsan yihiin dadka ka tirsan madaxtooyada maamulka Jubbaland haddii kulankan uu qabsoomo madaxweynaha iyo baarlamaanka waxa ay noqon kartaa laba mid in madaxweynaha uu muddo kororsi codsado isaga iyo baarlamaankan ay ku heshiiyaan labo in madaxweynaha uu keeno xaalado kale oo la xiriira doorashooyinka dhibaatooyinka ku gadaaman beesha caalamkana uu u sheegi doono waxa laalay wixii ku soo kordha xaaladaha la xiriira dhinaca doorashada gaar ahaan dhuusamareeb halkan ayaad nagala socon kartaa muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale mar walbana waxaan kaaga mahad celinaynaa sida joogtada ah ee aad inoogu soo gudbinayso afkaartaada muhiimka ah islamarkaana waxaan kaa codsanaynaa qof walba oo Soomaaliyeed inaad usii sheergarayso muuqaalkan si xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo qof walba oo Soomaaliyeed uu uga warhelo isagoo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddaba aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay